gaaban haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, weliye malaha ku cusub warbaahinta gaar ahaan af soomaali wax ku tabinta ayaa laga waraystay ku kale oo maalmaha geeriyooday isagana muddo dheer shaqada uga sii horreeyey. markaas buu qoyskii uu ka baxay tacsi hawada u mariyey, dabadeedna sida mararkaas oo kale loo badan yahay wuxuu uga gudbay ammaanta weliyihii dhintay, rabbi ha u naxariiste. tilmaamihii haddaba waa wanaagsanaa ee maalintaas uu marxuumka ku bantooqay waxaa ka mid ahaa aqoontiisii af soomaaliga. si uu taas inoogu muujiyena wuxuu yidhi, hebel allaha u naxariistee wuxuu ka mid ahaa weliyayaashii aan ku afbartay. wuxuu rabay inuu inoo sheego in af soomaali doora uu ka bartay marxuumka dhintay, taasna uu lib iyo gallad ugu hayo. laakiinse wuu qaldamay, maxaa yeelay weedhu si aada ayay u seegan tahay ujeeddadii uu rabay inay u guddo. marka hore waxaa kala duwan afbarasho iyo ku afbarasho. afka waxaa laga bartaa hooyada, macallinka, buugaagta, weliyaha iyo guud ahaan bulsho weynta uu ruuxu ku dhex nool yahay, mar uu yar yahay iyo mar uu weyn yahay labadaba. hase ahaatee ku afbarasho waxay xambaarsan tahay macno kale. oo muxuu yahay? waayeelka soomaalidu wuxuu dhallinyarada ka fishaa inay maamuusaan, inay ka dambeeyaan, inaysan la kaftamin, inaysan xifaalayn, weligoodna erey walba oo xanaf leh ay ka ilaaliyaan. marmar baase waxaa dhacda inan da'yari in qof weyn oo badana ay qaraabo yihiin uu si joogto ah ugu dhiirado, oo sidii iyaga oo isku faca uu mar walba afka ula galo. dabadeed qofka waayeelka ah kolka taasi soo karto ee uu qoonsado ee uu kaa yar ka eer sheeganayo ayuu yidhaahdaa, hebel waa igu afbartay, oo uu ula jeedo igama xishoodo, wuu icaayaa, hadalla aanan ka mudnayn ayuu ii quuraa. eed sheegadkaas markuu kaga ohol waayana inta cabsiiyo oo indhaha galka uga soo saaro ayuu ku yidhaahdaa, gaban yaho waad igu afbarataye, haddii aanan iska kaa celin ninka la igu sheegaa ima dhalin. sidaa daraaddeed ayuu weliyuhu af soomaaliga godab uga galay. wuxuu ku dhacay gaf weyn markuu yidhi, hebel wuxuu ka mid ahaa weliyayaashii aan ku afbartay. waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo, hebel wuxuu ka mid ahaa weliyayaashii aan afka ka bartay, ama habka wacan ee afka wax loogu tabiyo aan ka faa'iidaystay. sidaas ayaa u wanaagsanaan lahayd isaga maqalladiisa, dadka dhagaysanaya dhagahoodana u wacnaan lahayd. waa tahay ereyga koox wuxuu ka mid yahay ereyada la marin habaabiyey, ereyada weliyayaasha badankood ay si qalada u adeegsadaan, haddii loo sheegay oo loo sheegayna aysan muuqan inay ka soo noqon doonaan. dharaar noolba waxaynu wararka iyo faallooyinka warbaahinta ka maqallaa dagaallo, afduub, meelo inta la qarxiyey dad iyo hantiba lagu baabi'iyey. dhagaha markaan taagno isna weydiinno cidda falalkaas ku kacday, ayuu weliyuhu yidhaahdaa, falkaasna waxaa sheegatay kooxda alqaacida ama kooxda daalibaan ee dhowaanta talada dalka afghanistan xoogga kula wareegtay. taasina waa gaf xagga af soomaaliga ah oo uu weliyuhu ku dhacay, gaf adeegsiga ereyga koox ku saabsan oo inaan faahfaahiyo iiga baahan. koox waa erey lagu tilmaamo tiro dad ah oo aan badnayn, isla markaasna aan qeexnayn. waa tiro la maleeyo, asigi waa intaas aan la odhan karin. tusaale ahaan, odayadii hore ee soomaaliyeed uma bogi jireen qofkii wax ka weydiiya tirada wiilasha ay dhaleen iyo
sidoo kale midda geelooda. uma ay badnayn su-aasha caynkaasa inay si fudud kaga jawaabaan, haddiiba ay yeelaanse waxay odhan jireen geelna waa la dhaqan yahay, ragna koox baa joogta. waxay ahayd jawaab laga garan jiray tirada wiilashiisu inay tahay 5, 6, 8 ilaa 9. aan tusaale kale u soo qaato ereyga kooxi tix uu ku xusan yahay, lagana hayo gabyaagii weynaa ee la odhan jiray faarax xasan cali oo afcad lagu naanaysi jiray. wuxuu ahaa dagaalyahan ammaanduule ah, had iyo jeerna ku foognaan jiray soomaalidii qarnigii 19aad hawshii ay sida aadka ah u tiqiin. dhaca geela ayaan u jeedaaye wuxuu ahaa goor la joogaba nin col hor socda ama markaa ka soo noqday ama baqalqaalintiisa ku howlan oo raggii uu reeraha ka kaxaysan lahaa kala dooranaya. sidaasoo uu ahaa, haddana waxaas oo duulaana rabbi gabyaaga wax kama dheefsiin. geelii uu soo dhacaaba ama wuu ka baxsadaa ama cudur baa inta ka gala nag ka dhiga. maalintii dambe ayuu inta kobci la-akada loobsaday naftiisii kula kooday. wuxuu isbarbar dhigay saboolnimada uu ku sugan yahay iyo ragga ay xigtada yihiin qaarkood ladnaanta ay qabaan. wuxuu arkay xeradiisa oo maran iyo ilmo kooshin dalabtooda oo buuxda. wuxuu xusuustay xirsi dhaban cad oo curad iyo qaan, haleele iyo horweynba uu geeliisu 100 kor u dhaafay. wuxuu xusuustay dhowr adeeradiisa oo muuse cali ku jiro, duhur walbana karuurka uu isagu ka raagay ay dumaradoodu ka durduuraan. oo cili igama dadaal iyo duulaan badnee, maxaa ugu wacanoo geelii aan keenaaba inuu bulmo mooyee u bulaali waaya. su-aashaas oo aanu jawaab u helin ayuu isweydiiyey. si kastaba ha ahaatee, faarax afcad wuxuu cilmi dhagood ku haystay in qofka iyo inta uu nool yahay kadabka uu cuni doono isku mar la abuuro. dabadeedna isaga oo aad mooddo in hadda arrintaas uu shaki ka qabo ayuu gabay cabasho a tiriyey. wuxuu ugu dambaysiiyey su-aal aan baryo ka taganayn, uuna ku leeyahay ilaahow, qofka iyo kadabka loo qoray haddii mar la wada uumay meekaygii. wuxuu yidhi ilmo kooshin darab kor iyo hoos waa kun xooluhuye, xirsi dhaban cad kooray dhashaa loo kallihiiyaaye, harkibaa karuur loo shushubi kooxda muuse lehe, kalahaa naftaydii dishiyo kababax duulaane, waxaa boodyahaygii kirkiray koora oogadiye, goortaan mid keenaba mid baa laga kalmoonshaayey dadka kadabka eebow, ma waan kolla wada uumin. sheekadan faarax afcad ku saabsan waxaan uga gol lahaa meeriska ah harkibaa karuur loo shushubi kooxda muuse lehe, iyo inaan ku muujiyo ereyga kooxi inuu tilmaamayo tiro yar oo dad ah. waxay isku macno yihiin ereyga dhowr, labaduna waxay tilmaamaan tiro 3 ka badan 10na aan gaarin. sidaa daraaddeed waa gaf iyo laaxin in alqaacida iyo daalibaan kooxa lagu sheego, iyada oo la og yahay dagaalyahanadoodu in 100 iyo kumanba ay gaarayaan. waxaa haddaba ila habboon wariyayaashu inta aanay ereyga koox adeegsan inay u fiirsadaan tiro ahaan cidda ay ku tilmaamayaani inta ay la eg tahay. daalibaan iyo alqaacidana ay ku sheegaan waxa ay dhabtii yihiin oo ah ururo. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga, waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.